السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo janaalkeena Skill Hub. haddii janaalka ku cusub tahay subscribe saar. haddii aad ka mid tahay dadkii hore ee janaalku xirnaa aad u mahadsan tahay sida waan noogu xiran tahay. waxaan qoraynaa casharada inaan soo daahay maanta. waxaa ka hadli doonaa wax loo yaqaano technical SEO. qaybihii ka horeeyay haddii aad la socotay barnaamijka digital marketing waxaa ka soo hadalnay yani SEO ama search engine optimization. search engine waxa uu kala qaadnay ilaa iyo dhowr nooc. number 1 waxa uu kala qaadnay on page SEO wax la dhaho. number 2 waxa loo yaqaanaa off page SEO ama link building. qayb saddexaad ee qofka SEO markuu baranayo uu ku takhasusay waxa loo yaqaanaa technical SEO. technical marka waxay la xiriirtaa qaybta farsamada waana meesha ugu muhiimsan website kaaga ama maxaa la dhahaynaa Google first page aad kasoo gashid waxyaaba ugu badan ee saameynta ku yeelanay ka mid tahay. marka technically waxa laga rabaa waxyaabaas inaad xal u heli kartid. yani waxaa la dhiil gareynaysaa mostly yani problemska website-ka soo wajaha. tusaale hadda haddii aad fiirisid website-kan ay dhahayaan Somali Jobs camal. Somali Jobs website-kan markuu kacaayo ama loading time uu qaadanayo يعني وقت بدن وقادنا انت او wareegsanayo ama oo loading time kiisa waqti badan qaadana laakiin website kan hadda caasimada camal marka adi soo kicsid hore fast waad kan yani wili ma soo kicin laakiin caasimada waxa waaye marka click hadid hore ka soo kaca kana halka oo soo daahay marka waxa loo yaqaanaa yani mobile friendly ama ma ahin ama website speed kiisa no optimized oo maxaa lahaa speed ka website-ka lama xalin marka problem ka taagay website-kan camal marka oo qofka oo soo galaayo yani waxay ku qaadanaysaa inuu wax badan sugo laakiin halka caasimada marka ku dhufatid hore fast oo click oo ka yahay kaaga soo kaca marka waxyaabahaas camal la dhiil gareynaysaa iyo waxyaabo kale oo tiro badan marka waxaan arki doonaa horta number 1 technical SEO maxaa la dhahaa iyo sida uu shaqeeyaa faa'iidooyinka uu leeyahay waxyaabahaas dhan arki doonaa. waxaa jira marka ما حالة ده quotes ير أو ده هسه يعني for every second of delay in your page load time your bounce rate increases and you are losing your valuable leads. سالة يعني مرول ب أو كله delay website كده سالة هذا Somali Jobs عمل مركز قلني يعني delay أقول عينه سوق loading time كده مركز أبطأ يعني وحكر راي bounce rate كاga يعني qofka inuu sugo wax badan oo isku sugo oo waxa loo yaqaan bounce rate kaaga marka waxa baas dhanaa kordhaya taasna waxay ka luminay yani valuable leads qof website kaaga soo booqan lahay hadii oo alaab aad ku iibsid qof alaab kaaga iibsan lahay hadii yani xog news ay ku qoran yihiin qofku akhrisan lahay waxa baas dhanaa ku weynaysaa marka waxa u baahan tahay si waxaas aad u xalisid inaad wax ka fahansan tahay technical SEO. marka technical SEO waxay la xiriirtaa waa the process of ensure website kaaga inuu yahay compatible waxa loo yaqaan in yani website kaaga laga heli karo dhanka search engine ka hadii yani qof Google oo tago oo dhaho hadda soo qaad digital marketing course in Somalia camal oo dhahay waxa laga rabaa website kaaga number 1 inuu soo gali karo hadii aan laga heynin hadda Skill Hub saa ujeedid anaga waa soo galnay the same waxa laga rabaa website kan inuu soo galo marka qaabkan qofku inuu markuu u soo galo waxa loo yaqaanaa website kan waxa waa compatible way waxa laga heli karaa search engine ka inuu soo qabto oo website kaaga first page oo keeno way fududahay laakiin hadii website kaaga uusan ahayn yani website culays badan oo yahay oo mobile friendly oo uusan ahayn caqabad badan ka imaanay sababtoo ah dadka hadda adduunka joogo yani 80% maanta browsing ay sameynayaan mobile oo la xiriira mobile oo isticmaala qofka computer ma isticmaalayo marka waxa laga rabaa website kaaga inuu noqdo mid mobile friendly ah sidoo kale inuu ahaado yani waxa laga rabaa inuu ahaado speed kiisa ama loading time kiisa inuu fast ahaado marka waxa baas dhan waa aspectska oo qofka oo yani technical SEO-ska laga rabo inuu sameeyo marka waxa ku arki doonaa waxyaabahaas crawling ka waxyaabo loo yaqaan sale qofka markii oo array ama search query dhahnaa dadka SEO expertiga search query markaa sameeyso oo Google ka wax ka baartid Google wuxuu sameeynaa crawling wax loo yaqaan ama indexing wuxuu crawl spiders waxa loo isticmaalaa ama yani AI tools ama artificial intelligence tools oo loo yaqaano crawlers oo isticmaala crawlers kaas marka
inta waxaa jiro intaasoo bilyan oo website a jiro intaasoo crawl ku sameynaa oo dhexda soconaa wuxuu raadinaa marka qofkan wax oo baaraayo xog lamid eh markaasuu kadib wuxuu ku sameynaa inuu kusoo publish garay oo website-kaaga first page uu kusoo geliyay marka waxaabaas wax adi aa arki kartid ma ahin sida ay u dhacayaan iyo qaabka u dhacaayo waxaa laga yaabaa inaa ku wareertid marka technical SEO-ga qayb muhiim uu ka qaataa marka waxyaabaha oo technical SEO qofka oo baranaya ama ku taqasusayo waxyaabaha laga rabo oo ugu muhiimsan waxaa kamid ah running a crawler error report ma haddii yani website-kaaga crawling report-kaaga oo error oo ku jiro inaa xalin kartid see loo xaliyaa waxaa jira wax la isticmaalo inaa isticmaashid XML sitemap wax loo yaqaan ama Google sitemap toolska inaa isticmaashid ama webmasterska in aad bartid website-kaaga Google iyo Yahoo iyo Bing iyo Yandex iyo all maxaa la search engine-ada inaa maxaa la dhahaa sitemap-kooda website-kaaga oo barto marka waxaa kaloo jiro in laga rabaa qofka SEO maxaa la dhahaa technical SEO-ska inuu wax ka yaqaano yani sida loo eliminate gareeyo duplicate contactska tusaale website-kaaga wuxuu ka koobnaan karaa dhowr page yani waxaa laga yaabaa some pages inaa duplicate a ku sameysay oo content same content laga helo marka search engine wuu ku wareeraa waxyaabaas lagama rabo waxaa kaloo laga rabaa auditing preferred domain yani inaa domainkaaga aad prefer garin kartid website-yada hadda marka oo link building-ka la sameynayo laba waxaa laga fiiriyaa wax loo yaqaano BA oo ah page authority iyo DA wax loo yaqaano oo ah domain authority marka waxba saman domainkan age-kiisa iyo waxaas dhan inaa adi aa prefer garin kartid soo kale waxaa jiro improving meta data iyo HTTPS waxabaas iyo broken link-ga iyo XML sitemap-ka iyo waxabaas dhan qofkan inuu fahmi karaa laga rabaa oo technically aa qaban kartid soo kale sida website-kaaga page-kiisa speed loogu sameeyo haddii oo culeys oo yahay sida loo hormariyo problemska meelaha ay ka imaadeen waxabaas dhan inaa analyze garin kartaa laga rabaa soo kale waxaa jiro wax loo yaqaano reportext wax loo yaqaana jiro reportextigana waxaa waaye tusaale some page saartaa inaad qarisid oo website qof markuu soo access gareeyay waxaa loo isticmaalaa wax loo yaqaano reportext waxaa kaloo jiro optimizing website for mobile friendly in website-kaaga aad ka dhigtid mid mobile friendly ah oo haddii computer laga soo galo laga akhrisan karo haddii mobile laga soo galana laga akhrisan karo tusaale website-kan Somali Jobs camal markii aad rabtid inaad ogaatid mobile friendly inuu yahay waxaa dhehaysaa okay source code-ka waxaa jiro qaab loo fiiriyo website-ka dhan waxay ka xireen source code-kiisa tusaale okay aan dhahno kan camal right click dheh view page source yaa dhehaysaa marka waxaa jiro qaab aa u ogaan kartid maxaa la dhahaa website-kan inuu yahay mobile friendly iyo in kale marka waxaa jiro laba nooc jirto nooc waxaa waaye inaa automatic website-ka caadiga aad tagtid oo kadib aa fiirisid yani sourciga website-ka midna waxaa waaye inaa isticmaashid maxaa la dhahaa toolska ama Google toolska ha tusaale halkaasa ku dhufanaysaa mobilekan tusaale marka qaabka uu ku noqonayo mobileka waa kana marka website-kan waxaa waaye mobile friendly waa saa ujeedid waa kaasa mobilada kala dooran kartaa tusaale hadda daaratid iPad camal qaabkan uu ekaanaa haddii laakiin website uusan ahayn mobile friendly wuxuu ku tusayaa yani inuu qayb website uu ka maqan yahay inay qayb kalena la arki karo all this oo asaa ku tusaya marka had iPad camal daaratid iPhone Pro yani any mobile daaratid halkaas Pixel 2 qaabkan uu soo baxaya marka waxaa habka u fiirin kartid website-ka inuu mobile friendly yahay in kale haddii se uusan ahayn mobile friendly yani waxaa arki doontaa qayb inay ka maqan tahay website-ka oo dhinacaan camal half uu yahay dhankan kale laga arki karo waxabaas haddii errorka noocaas aa ku aragtid yani website-ka mobile friendly marka waxaa badanaa jiro oo qofka oo technical SEO-ska oo laga rabo inuu expert ku noqdo midna waa u arki doonaa yani qaybaha muhiimka waxaa kaloo muhiim ah qofka laga rabaa marka aad rabtid inaa SEO expert aad rabtid inaa noqotid in website-kaaga uu yeesho SSL certificate tusaale waxaa jiray bank la dhaho IBS bank hadda bankigan I don't know hadda inay wax ka bedeleen in kale
hadda HTTP waa secure ka dhigeen laakiin maalmo hore waxaa jirtay marka website-ka aad booqatid inuu maxaa la dhahaa SSL certificate ama male SSL certificate waxaa marka wax kala maahin waxaa loo yaqaanaa secure second layer waa is a secure technology which created encrypted links between a web server and browser marka waxay ka ilaalinaysaa website-kaaga in hacking-ka iyo waxyaabahaas lagu soo suubiyo hadda waa SSL certificate uu leeyahay waa certified marka waxay ku xiran tahay qaabka loo ogaado iyo sida loo soo sameeyo waxa waaye inside your hosting-kaaga ka samayn kartaa waxyaabaha kale ugu muhiimsan waaye marka aad rabtid oo in SEO technical analysis expert aan noqotid marka in website-kaaga secure oo yahay waxyaabahaas dhan inaad ka shaqeysaa laga rabaa sidoo kale ensure your site is mobile friendly waxaa kaloo laga rabaa website-kaaga inuu yahay mobile friendly see lagu ogaan karaa marka waxaa kaloo jiro marka aad rabtid website-kaaga inaad fiirisid responsive inuu yahay responsive waxaa la dhahaa website-ka markuu mobile ku kici karo computer ku kici karo tablet ku kici karo any device ah isticmaashid oo ku kici kara waxaa loo yaqaanaa mobile friendly waay waxaa ku hubin kartaa marka waxaa jiro maxaa la dhahaa Google waxay leedahay tool loo isticmaalo inaad ku hubisid in website-kan mobile friendly yahay marka waxaad dhihi kartaa website mobile friendly checker marka automatic number 1 ugu soo galaa Google iskale waa kana search.google kana isticmaalaysa marka qaabkan aad dhehaysaa halkaas ka qaadanaysa copy soo dhaho ama website-ka markaas aad rabtid inaad analyze gareysid halkaas ku dhufo hadii website-ka code-kiisa ay sidna halkaan aad gashan kartaa hadii URL kaliya isticmaalaysid URL ka qaadanaysa test ku dhehaysa marka wuxuu ku sameeynaa all xogta website-ka ku soo bandhiga hadii problems oo jiro wuxuu ku sheegi doonaa yani the problems kan email ay ka imaadeen sida u xalin kartid waxyaaba isticmaali kartid hadii ay jiraan maxaa la dhahaa images oo maxaa la oo culus oo website-ka ku jiro wuxuu ku dhahaa waxyaaba iska saar all wuxuu ku siinaa maxaa la dhahaa waa dhakhtar adoo tagay oo dhahay maxaa la dhahaa dhakhtar oo baaritaan ii sameey markuu ku baaro oo ku dhaho okay this is your problem xalkaagan waa kana marka wuxuu ka caawinaa marka toolkan waxaa la dhahaa mobile friendly test ama waxaad dhigi kartaa search.google.com/test mobile friendly URL kaas isticmaali kartaa ama simply waxa Google ku qori kartaa inaad dhahdid maxaa la dhahaa website mobile friendly checker automatic qaabkan uu ku keeni doonaa wuxuu ku keeni doonaa website-kaaga soo eegaya tusaale website-kan aad saa ujeedid xogaa culeys badan ka jiro screenshot HTML code-kiisana waa kana daartid oo diyaarsan marka website saa ujeedid hadda is not running well sababtoo ah website korta mobile friendly wuu yahay laakiin cilada haysta waxay tahay loading time-kiisa problem ka taagan yahay marka waa kana website-kan wuxuu ku dhahay waa loading mobile friendly waaye the page is easy to use on mobile device mobile-kan si fudud u isticmaali kartaa additional resources-ka iyo waxyaabaha kale ku siinaayo halkaan aad ka heli doontaa يعني loading issue عقبات ugu badan ee website kasta waxa way yani loading issue wax loo yaqaan loading issue gan hadaan waa aragnay waa idin tusaamalena website markuu soo kacay inuu waqti badan qaato some pages waxa way page partially loaded qayb kamid oo soo bandhigay marka problem isku haysto dhan halkaan uu ka tusaa marka tusaale urgent Google marka website-ka page-kiisa page-ka uu soo akhrinin waa kana ilaa 43 page waaye waxaaba daa idin sheegaan waa kana report text-ga waxa loo yaqaanaa some pages-ka oo la xiraayo oo tusaale pages-kana xarta qofka markuu oo soo search gareeyo ama oo click u dhaho inuu san u furmin waxa loo yaqaanaa marka waxa loo yaqaan waxa la isticmaalaa waxa loo yaqaano report text.txt marka wuxuu ka caawinaa in yani some pages la galo pages kalena la xiro tusaale marka aad rabtid ina page aad ka xirtid waxa dhehaysaa yani code yar la isticmaalaa allo slash allo laba dhibcadaas dhehaysaa slash page ka aragtid halkaas gashanaysaa kadib waa xiraysaa haddii aad aragtid page ina ku xirtay maxaa la dhahaa report text filekaas oo xarta ina dib usoo bandhigtid meeshaan allo ay ku qoran tahay waxaa dhehaysaa dis allo waxaa ku qoraysaa dis allo kadib waxaa raacinaysaa laba hash waxaa dhehaysaa marka page tusaale home camal home markaa dhahdid qaabkaan inta waxaasaa dhehaysaa adhowna waa xiraysaa marka qaabkaas marka page-ka xiran ee website-ka oo yani publicly loo soo bandhigin usoo bandhigi kartaa marka all the problems iyo page-ka oo soo load gareynin waa kana ku sheega JavaScript console messages-ka iyo problems-ka website-ka ka taagan all asaa ku sharxaayo iyo waxa ay ka qabanaysid marka waxa way kan waxa u isticmaalaysaa maxaa la dhahaa
pagekaaga markaa artid inaa xalisid. marka waxyaaba kaloo badanaa jiro, waxaa jira marka lagaa rabaa inaa fahantid speed your site up. haddii website-kaaga culeys uu ku jiro, yani sida ku ogaan kartaa, waxaa asna simple waxaa dhehaysaa website speed checker. halkaasaa ku dhufanaysaa, waa kana ereygaana qalday test kaas isticmaal. mid waxaa jiro Google ay leedahay think with Google, waa kana. marka the same hadda website-ka soo qaad. website-ka marka waxaan rabnaa inaan hubino loading time-kiisa, waqtiga uu qaadanayo inuu maxaa la dhahaa, waa kana waxaa la dhahaa page speed insight. hadda wuu analyze gareynaa page-ka halkaana buuxsamayso. marka wuxuu ku sheegi doonaa the problem oo dhanka loading time-ka ka haysto, haddii sawir qaldan ay ku jiraan, haddii code error oo jiro, any problem wuu ku sharxaa. marka yani waxyaaba kaloo cusubna hadda way kusoo kordhiyeen oo maxaa la dhahaa oo updated marka asna waxaa ka akhrisan kartaa inaad website-ka imaatid oo xogta yani aad guda gasho. tusaale website-kan saa ujeedid oo Somali Jobs loading-kiisa yani inuu analyze gareeyo waqtiga qaadanaysa. hadda 9 hadda marooya, mar hore soo gelin lagama rabo. waxaa laga rabaa yani 1 second inuu internet-ka daa isticmaalaan, waa high speed internet. waxaa laga rabaa marka 1 minute gudahood inuu soo publish gareeyo. marka caqabadaha ugu badan ee ka jira aydan ay kamid tahay si yani halkaas xal loogu gaaro waxyaabaha isticmaali kartid. marka waxaa kamid yani inaa isticmaashid fast web hosting, inaa isticmaashid ama use fast DNS domain name system provider, inaa isticmaashid minimize HTTP request, keep use script and plugins to minimum. saal waxaa jiro website-yada qaar plugins WordPress ku dhisan yahay, plugins tiro badan la isticmaala. marka waxyaaba qaar pluginska muhiimka ku ahayn inaa ayagana ka tagtid oo xalka u tahay. tusaale website-kan yani speedkiisa low waa 13% waa aad u hooseeya. marka saa ujeedid, marka oo mobile-ka uu yahay waa 13, desktop marka la isticmaalana waa 63. marka caqabadahaana haysto all waxaa kana saa ujeedid problemska halkaana kugu soo bandhigaa, yani fast content paint, fast input delay, xogta dhan halkaana ka akhrisanaysaa. marka problems website-ka haysto, opportunitiska waxaa lagu dhaha reduce initial server response time-ka, eliminate render blocking resources-ga, reduce unused CSS-ka. all these xogtaan inaa daba raacdid ama sida diagnosis-ka xalka ugu heli karto waa kana ensure text remain visible during the web point load. waxaana dhan inaa akhrisid. marka qofka markii oo xogaa SEO waxyaabaas oo wax ka yaqaan iyo coding-ka labadaas daa isku darsatid oo xogta akhrisid, website-kaas problemkiisa waa xalin kartaa. qoladan Somali Jobs hadaa dhaadin website-ka anaa idin xalinaa problemkaas idinka taagan, lacaga ugu qaadan kartaa, waa ka shaqaysan kartaa. marka haddii aad rabtid marka SEO inaad baratid, course dhan oo waxaa jirto anaga aan bixin oo advanced digital marketing ah oo SEO-gu waa qayb dhan oo balaaran ka hadalna. waa kana yani algorithmska, problemska ku dhaco maxaa la dhahaa website-ka, waxyaabaha penaltieska Google ay leedahay, sida loo recovery looga sameeyo, trendiga waxaas dhan halkaas ku baranaysaa, yani waqtigaaga lumin. waxaa kaloo xalka qofka technical SEO-ska laga rabo waxaa kamid inuu fix gareeyo duplicate content issues. waxaa jiro yani content oo duplicate content-gan yani wuxuu caqabad ku yahay userska iyo search engine-ka labadaba. sababtoo ah wareerina haddii content-ga page-ka aad ku aragtid, page kalena the same aad ku aragtid, xogaa caqabad ay kugu noqonaysaa. marka waxyaabahaas dhan muhiim waaye inaa fahantid. sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano XML sitemap, qofka inuu abuuri karo. XML sitemap wax kale ma ahin, waa Google iskale. haddii aad dhahdid halkaas waxaa ku qoraysaa Google waa kana halkaas submit ka dhehaysaa. waxaa waaye yani markaa isticmaashid kan XML sitemap-kan wuxuu kaa caawinaa in yani page-kaaga ama website-kaaga ay Google aqoonsato. marka sida si aad u abuurtid waxaa u baahan tahay inaad website-kan soo booqatid, create sitemap aad dhahdid, website-ka oo aad u rabtid inaa maxaa la dhahaa aad gudbisid ama Google oo aqoonsada aad rabtid inaad halkan ka diiwaangelisid. marka hadhow waxaa Google u fududaanaysa website-kaaga inuu fahmo oo marka waxaa soo gelisid update aad ku samaysid waxaas dhan si fudud u fahmi doonaa. marka XML sitemap-kan waxa waaye waa file that helps search engine to understand your website.
يعني search engine-ka Google ha ahaado, Bing ha ahaado, Yahoo, Yandex all waxay ka caawinaysaa in website-kaaga ay aqoonsadaan. marka crawling la sameynaa qofka marka wax internet-ka soo baaro haddii website-kaaga sitemap-ka loo gudbiyo automatic way aqoonsanayaan, notice helayaan. waxaan wax la mid ah qofka oo baaraya marka hadii ku jiraan automatic website-kaaga first page soo bandhigi doonaa. marka yani waxyaabaha uu ka caawinaya waxaa ka mid ah yani page-kan last modified-ka goorma ugu dambeysa wax laga bedelay, what's priority it has on your site, sidoo kale how frequent is updated. yani hadii page-kan la update gareeyo wax la soo dhigo wax laga bedelo waxaas dhan Google si fudud ogaana wax badanayna qofka website-ka iskala ka caawinaysa. marka search console-kan asna sidoo kale waa iyo XML sitemap-kaas way isleeyihiin. waxa marka aragtid inaad waxyaabahaas aad diiwaan gelisid waxaad isticmaali kartaa Webmaster Tools wax loo yaqaano. Bing waxay leedahay Webmaster Tool haddii aragtid inaad faham guud aad ka heshid Google-ka waxaad ku qoraysaa Bing Webmaster Tool. sidoo kale Google waxay leedahay Google Search Console wax loo yaqaano. marka all these inaad fahantid laga rabaa waa concept guud oo ku saabsan technical SEO. halkan waxaan kusoo gabagabeynaa cashirkeeni ku saabsanaa technical SEO-ga iyo sidoo u shaqeeyo faa'iidooyinka uu leeyahay. maxaa la dhahaa channel subscribe saar haddii aan ugu cusub tahay, haddii aragtid inaa sida waxyaabahan loo sameeyo aad baratid then kusoo biir course-keena advanced digital marketing-ka waxaa heli doontaa insha Allah qiimo dhimis ballaaran. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.